madaxweynaha cusub ee galmudug cabdi qaybdiid ayaa magacaabay qaar ka mid ah golayaashiisa wasiirada warbixintana waxay noo soo diray wariyaheena Axmed Khaliif Geedi madaxweynaha cusub ee dawlad goboleedka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa gaalkacyo ayaa ugu horeyn waxa uu hambalyo ku aadan munaasabada ciid u diray dhammaan ummadda muslimiinta ah halkan waxaan uga hambalyeeynaa munaasabada qaaliga ah ee ciidul fidriga ummadda islaamka ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan bulshada reer galmudug meelay joogaanba ilaahay waxaan ka baryeynaa in ummadda islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed maalintaas qiimaha badan inuu lagu siiyo dambi dhaaf bisheeda kalena ummadda adduunka iyo ummadda Soomaaliyeed islaamka ayna inay ku gaaraan baraare iyo midnimo sareeyagaas cabdi xasan cawaale qaybdiid madaxweynaha cusub ee galmudug ayaa dhinaca kale waxa uu saxaafadda u akhriyay wareegto uu ku magacaabay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada inaan halkaan uga dhawaaqo qaybtii koobaad dawladda cusub ee galmudug markuu arkay madaxweynuhu qodobka 49aad faqradiisa labaad ee dastuurka dawlad goboleedka marka uu arkay madaxweynuhu baahida loo qabo in la magacaabo golo wasiiro oo karti iyo aqoon leh si loo dardargeliyo hawlaha shaqo ee loo baahan yahay madaxweynuhu wuxuu dekreeto ku soo saaray magacaabista wasiirada hoos ku qoran kow mudane cali nuur xaaji wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga دكتور عبد الولي الشيخ علي محمود وزير كمالية هي العقد مدني عبد القادر علي جامع وزير كالوميسيقى دكدها يا خيرات كبدا أفر مدني أحمد محمد باستو وزير كورفافينتا باستو يسقارسين شن دكتور عبد الله جامع علمي جيمس وزير وزارة عافيماتك مقعابسان وزارة وزيرده waxay dhaqan galaysaa taariikhda una saxiix madaxweynuhu faafinta rasmiga ee qaranka iyo tan gudahana lagu faafiyo marka laga reebo wasiirka kalluumaysiga dekadaha iyo kheyraadka badda iyo wasiirka caafimaadka ayaa saddexda kale ee wasiir ee uu magacaabay madaxweynaha galmudug cabdi qaybdiid waxa ay ka mid ahaayeen saddexdaasi wasiirro hore uga tirsanaa xukuumaddii madaxweyne caalin Axmed Khaliif Geedi telefishinka caalamiga ee Somali Channel gaalkacyo